We have energy. Energy. Ababa. Ismergy. Hader iyo energy. Oshwe bilaabanaysa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل ورا سداد الملكة دنيا داخل كتشوكتنا مركب مقال سبسول وهذا صاحب يال مركب كل شيء نسمر تندي تواحد كعد سنة مقال كنا لايك سارتان بقينا فيسبوك عبد السلام محمد كعد سبتنا بفضلها كعد سنة إن المكان سايسوف لو كل صوت كم من هذا أصحاب تكون حنبرتا إذا أدب ما سنت سحب وكم ما سنتي قبل جنك تبين تيجي نده هرو شوكتي هنقعد سنة مقال كنا لايك سارتو لايك سار مقال أدب ما سنتي لو موضوع مقال الله يا موضوع هويا حركة صور كتكاركتان هويا قبل سركالة ده ولود ديبي saldhig ka mid ah saldhigyada magaalada Muqdisho kadibna dhalinyaradii oo dhami ee Muqdisho joogay ay taagan yihiin wadani anaga saldhigii shibisana lagu xiro hana lagi macaad bilaahna lagu kaxeeyo halka iyada lagu soo xiro iyo madaxda Soomaaliya yaani hadeerto madaxweynaha hadeerto doortay Soomaaliya muxuu xilka haweenka amsi iyo kala tusaale maxaa ugu gudboon oo kale aynu insha Allah doonayna falaqeynta ka sameeyo inta kale oo ah Sharma Boy maxaa sababay inuu qaban waayo bandhig fanaadkiisii toonka May ayna la wadaageen isaga iyo magaalada maslax mideeye inay ku qaban doonaan magaalada Djibouti oo dadka reer Soomaaliland iyo halka jooga ay u dabaaldegi doonaan iyo mowduuc saddexaad oo ku soo dari doona nin dhalinyaro ah waana doonay afaarihiisa kala balse laakiin magaalada Gibil ku xiran oo isagoo reer Djibouti oo ni ma kala maarmo markii Djibouti soo qaaday ay tahay saddexda mowduuc ay doonayaan kala saaxiibayaal ee soo dhawaada muuqaalka like saara bugana Facebook dadka cusubtana waxaan ka codsanayaa sina like saarto oo ku soo biirto kamid ahaato ee bal soo dhawaada saaxiibayaal ugu horeyntii waxaan ku daafuraynaa ama aan doonayaa in marka hore aynu wada daawano balanqaad hore yaani muuqaal hore ma balanqaad hore oo Sharma Boy iyo maslax mideeye u qabteen dhalinyarada reer Soomaaliland ee Djibouti joogta in bandhig fanaad 18 May u qaban doonaan bandhig fanaadkaas waxa mid ay dadkoo dhimindhaha ku hayeen oo ay wada sugayeen oo ay wada doonayeen balse laakiin ma u dhicin maxaa sababay aan muuqaalka wada daawano We have energy. Energy. Ababa. Ismergy. Hader iyo energy. Oshwe bilaabanaysa. Osh hader bilaabanaysa. Ya? waayahay wadaagta muuqaalkaas ugu horeyntii waxay sheegeen in magaalada Djibouti ku qaban doonaan bandhig fanaad 18 May ee hadda ku soo gudbin bisha caawa 18 bisha ee lagu qaban magaalada Djibouti sidoo kale su'aasha isweydiinta mudan waxay tahay Sharma Boy harkiisa ayuu minimuu sheegin sabab uga baaqday inkastoo hadeerta aan maqlay inuu iman doono sidoo dhijay subar sheegay oo baraha bulshada soo galiyay hadeeran iman doono oo yaani processku ku imanayay la dhameystiri doono balse laakiin ma uu iman markii hore waxa uu sheegay toos inuu ugu qaban doono bandhig fanaad magaalada Hargeysa toos uu dulmaray waxa uu tagay magaalada Djibouti caasimada dalka Djibouti waxa uu sheegay inuu u qaban doono 18 May dabaaldeg reer Soomaaliland ay leeyihiin laakiin ma suuro gelin ma la oran karaa dawladda Djibouti ama Djibouti ayaa sababtay inaan bandhig fanaad ugu qabanin magaalada Djibouti caasimada Djibouti ma la oran karo waa su'aal isweydiin mudan ma la oran karaa inay caqabado kale ka hor istaageen kulay waxaan wada sugaynaa inuu Sharma Boy magaalada Hargeysa ay ku soo dhaweeyeen soo la sheegay ama inuu iman doono magaalada balanqaadida hore u sheegayna inuu ka dhabeeyo reer Soomaaliland u balanqaaday ee haasta 18 May inuu qabto waad garateen Soomaa halkaan kaga imaado magaalada Gibil ee caasimada gobolka Gibil maalmaha tahay waxa lagu xiray nin la yiraahdo Ardaale kulli dawladda Soomaaliland baxday sababta sifaha u xidhay iyadoo taala barnaamijyada waxa soo geliyay ninkaas isaga in Djibouti loo dhiibi doono magaalada Soomaaliland Djibouti loo dhiibi doonto oo yahay muwaadin reer Djibouti reer Djibouti Soomaaliland ay u dhiibi doonto jamhuuriyadda Djibouti haday suuragal noqoto weeyaan wasaar sheegay balse laakiin anu dadsan ku ogay Soomaaliland kulli reer Soomaaliland ama dawladda Soomaaliland ama dadka Soomaaliland hatirta madaxda oo waqti xadirkan hayo wadada inta badan xiriya يعني قفك بتيجي له هاي يقفك يعني مكرمة صحيح مرتدى مركا ومرن مايو سمالا أما هرجيسة أما يعني هرجيسة وأنا سمالا أنت يديبتو يعني كهاي سجع Djibouti وديبي دونتو وأنا أبتلو هاي كلنا إنك بتيجي له هاي دبك سوق يستادو أبتيش حاجة تما كمرة وأكل بتباديون مركا كمان نقانو مكرمة صار رئيس سمالا يعني قف مكرمة صحيح موادرة إن يديبان أما يدرك له بيان كل وسكاف لقى دوني مدي بدون الحريابة إن كيس بابين لقوا سمينيو يعني أهل اللي جاخ بفني حريقة قدي سوى صورة قل مركا قفنا كبر رقم حلو يعني دي كبر دسكو حريات كل ربلا حر لها مركا قف وحصاق جرنا بالحرا ويعني هذا ورني ودي شيء تانك سكنارو يا بالكن دسكو صور حلو مركا دونا ولا سكشي دايا قف كحصاق جرنا قف برنا كاس كمر يحوق جسين أنا ما حلو هالكم موضوع كان كمان هذا
موضوع كان قصة كبدل وحويان إنن لو ديبي سلك كم من سلك هذا مقارنة مقدشة شرط الله مقعاوي تلي عيدك بوس كسومالي مقعاوي أو مقارنة ساي لأن يردي أردمي أي تاجيهين وأنجو نوين يهو حتى أنجو دم بيجلين هنا لو صو حر سلك شبيس هنا رجيو أنا واحد دوننا إن سلك شبيس نلقو حر ما دام جوار بتشوج النور ويكتمي تلي سلك لو قدك سؤال شخص كيستأسوا الدنيا حويان إنن خير نوروية كل دارتي كبر بارتي وحكو بارتي إلا من BHD كسي أو يعني حكو صار بارتي دالك نوروي واي أما السبب ما أما الصفة ما أي سومالي تكتمي ولما تلي سلك كلمتي والسؤال سويدين مثلا كله وقف دالك يسجل هذا ضنيرة هنا حوالي سن إن دالك حاجة جعلاته أو صفة كسر حقوق كمان كانت هذا تلي سلك نقول سيادة كسر حسين السوا أما أسكت عليه حتى تظن نقول سوا إن أديكوا طلعت المواد دالك يدين يمدي سجل بعض هاي soo jeedinta halkan uga soo jeedinaa waxay tahay kula madaxweynaha Soomaaliya hadda qabsaday Xasan Sheekh Maxamed hore ayaa uga hadlay inuu magaranayay yani koota fiican haweenka siin doono marka waxaan oran karnaa wax qabadkii ugu horeeyay ee xukuumadda hadda yarta dalka la wareegtay ee qabatay madaxweynaha Soomaaliya hore ayuu uga hadlay oo sheegay halku ka taagan yahay dumarka Soomaaliya kula muuqaaladiisa YouTube-ka Facebook inta baad ka heli doontaan dumarkuna inay magaranaysa xuquuq muhiim ah ku yeeshaan ama taliska ka noqdaan ama taliya qaybadi ha noqdaan ama janama ha noqdaan sakiya kamidaba oo magaranayay taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya taliya xigeenka marahayd ayaa kamida gudoomiyihii ama nabad sugihii maalintii doorashadii golaha baarlamaanka iyo golaha aqalka hoose dhacayna ee iyada goobjoog ka ahayd oo dadkii mas'uuliyadda loo xilsaaray inay ilaaliyaan ama mas'uuliyadda laga saaray ay ahayd marka waxaan baleynayaa waxa leeyahay saldhigash bis balariga lagu soo xidhay inta aan soo arko bila dacwad baa wax ma geysinin laakiin inta loo ka timi taliya saldhigash soo arko balariga halkii hal geeyo ayaa leeyahay way kaftan laana wax loo xarig wax asaasata maaha qofka xoridiisu aad u muhiim tahay wax leeyahay Soomaalida wax qaldayan laga soo qaadin hadii inta taliya saldhig laga dhigaa ama taliya loo dhibay qof dumar loo dhibay qofka dumar iyo ninka waa isku xuquuq wala qof bilaadna sagaal bilood ku dhasheen ilaahay baa magaranaysa yare kala nisbiyo oo dumar iyo rag inaga kala dhigay balse laakiin waxaan ogsoonahay inta dadaasha inaan ninka rag qaban karin iyadoo qaban karayso ayaan ogsoonahay ama aan aaminsanahay aad baad maasid saaxiib ku mahadsantihiin kiimashada ku giritaankiina haddaad hore joogto waad mahadsan tahay hadda cusubtina soo dhawaaday waxaan ka codsanayaa muuqaalka inaad like ku sharafto oo like garayso boggeena Facebook Cabdirasaaq Maxamed aad nagu xusubtina in lagu soo gurto bye bye inshallah